بسم الله الرحمن الرحيم. معي واحد عبد الله إبراهيم. waxaan ahay bukaamada jiifa isbitaalka weyn. hadda muddo dhowr iyo toban casha 12 casha waan jiifaa baan malaynayaa. qalliimo badan baan maray. markii hore 2 qalliin 3 qalliin baan hadda soo maray. mid gacanta iyo 2 wareeshin caloosha ah. aad baan culusaa markaan imi. waxaa aad ila dacaalay isbitaalka dhaqaatiirta joogta iyo dhammaan hawlgalayaasha ka hawlgala isbitaalka weyn. marka 2 qalliin baa ahay. mid waa kan gacanta oo dhakhtarka lafaha baa ikabay gacantaas ka jabnayd. hadda way saysataa gacanta waad aragtaan waa soo kamaysa alxamdulillaah. qalliinkaasana ugu fududaaba qalliimada aan galay. kan caloosha buu ahaa halkan iga soo baxday dhabarkayga iga soo dhacday halkaas ka beerka barbay la jaray kelidana way dhaawac waxbay gaarsiisay. alxamdulillaah waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa agaasimaha guud ee isbitaalka iyo hawlwadayaasha waliba aad iyo aad aan ugu sii mahad celinayo hablahan garab dhinacyada taagan oo runtii had iyo habeenba aan naga seexan oo waardi naga haya oo caafimaadkayga la soo tacaalay. marka ilaahay mahadi weeye. aad baan u mahadinayaa isbitaalka iyo dhammaan gudaha iyo dibadaba dadka ka shaqaynaya iyaguna naga caawiyay inay dhaqaatiirtan naqashay noo soo diraan. marka alxamdulillaah aad baan noola garab taagan yahay. hadda uun ma aha in la garab taagan yahay oo la isku kaayo sawirayo. waa har iyo habeenba waa dad u noo taagan inay na badbaadiyaan oo hiigan noo ah oo aan naga tegayn oo aan cidlo dareemayn. waxaan ka dhimadahay dhaawacyadii kusoo dhaawacmay dagaal ka socda gobolka Sool. waxaan ka soo dhaawacmay gacanta bidix way burburtay. waxaa lay keenay dhakhtarka weyne Laascaanood. alxamdulillaah waxaa lagu shaqeeyay si professional ama heer caalamiya. dee waad arkaysaan gacantaasu waxay ahayd maro markii dhakhtarka lay keenay. maantana wata aniga wax muddo 10 casho gaaraysa 20 bisha lay kabay. maantana 30 bisha dee wata inaan ku shaqaysto in yar bay u jirtaa. alxamdulillaah rabbil caalamiin. shaqaalaha dhakhtarka ama dibadda laga keeno ama dalka awalba ka hawlgeli jireen baa si hawlkar la igu shaqeeyay. alxamdulillaah maanta aad iyo aad baan u fiicanahay. dee maasha allah wata gacantaydii waa aad iyo aad buu fiicantay. dhakhtarka qalliinka noo shaqeeyay waa dhakhtar aad iyo aad u wanaagsan. waa isaga iyo dadkii ku soo taxalluqay ee meesha keenayba. This is Tadesse. I'm orthopedic and trauma surgeon working in Laascaanood General Hospital, and we are doing fine. And we operated around 29 cases till now within the last around 12 days or something like that. So our patients are doing fine. So far we are doing good. waa Farduus oo joogta Laascaanood. waxaan halkan rabaa inaan uga mahad celiyo Ilaahay baa mahad iskale uga mahad celiyo dhalinyarada isxilqaatay ee joogta dalka dibadiisa ka naxday ee ka dhiididay dhibaatada haysata dhaawaca ku dhaawacmaya shicibka ah ee ku dhaawacmay magaalada Laascaanood iyaga oo u hayargareeyay dhakhtarka orthopediga ah ee ka hawlgala isbitaalka gobolka Sool ee weyn. waxaan idinku bogaadinayaa marka hore Ilaahay baa mahad iskale. aad baad u mahadsantihiin. baahi weyn oo ballaaran ayaa daboosheen. isdii cid group kastaaba sida isu xilqaamana insha Allah taala waynu ka gudbi doonaa caqabadaha ina haysta. xaqiiqiyan maanta bahda caafimaadka ee ka hawlgalisa isbitaalka muxuu ahaayay gobolka oo madaafiicda aragteen ku dhacday oo u dhabar adeegay oo maanta yacni aan ka qaxin wali dhaawac iyo dhiiga ku kala guraya iyadoo meel walba laga duqeynaya haddana yiri tawakkal cala Allah yiri ayaad maanta ugu dul keenteen ninka dhakhtarka ah. ilaahay subxaanahu wa ta'ala jazaagiina janna Allah ka dhigo. waa Ramadaan
waxaan idiin sheegayaa waxaad maanta safe garayseen life badan nololo badan ayaad badbaadiseen waxaad maanta aad badbaadiseen dileygii ku iman jiray orthopediga ee la qaadi jiray ee ma garanaysaa meel garow ka sokaysa aan lagu qali jirin nin jaban waad garan kartaa oo dhiig baxay ilaa halka la sii waday waad safe garayseen arintaas oo maanta markuu saa uga soo dhaawacmay furinta laga soo qaado baqaliinka la gelinaya ma garanaysaa maadaama dadku badnaayeen daahidii uu qaliinku daahi jiray iyo communicationkii ka dhalan jiray waad safe garayseen oo maanta dee qofkii in badan ma sii oolayo oo dhakhtarkii markiiba waxa weeyaan hawlihiisiibu fushanayaa oo qaliinkiibu gelayaa wax caqabadana ma ay haysato durba intii yarayda uu joogay ku dhawaad 30 qof ayuu maanta qalay muxuu ahaaye oo ma garanaysaa birihii geliyey oo maanta taahoodii iyo dhibkii oo dhan ka raystay muxuu ahaa wixii complication ee vascular problem imanayay ayaad safe garayseen dhiig bixi badnaa iyo muxuu ahaaye xubnihii la goynayay ayaad safe garayseen soo maaha wax yar hal dhakhtar oo kaliya aad safe garayseen aad hayar garayseen oo shaqaalaysiiseen ayaa intaasoo problema inaga xalilay xubnihii iisiga loo geynay waa garan kartaa qofku markuu dhaawac yahay uu jabo vascular problem baa ku dhacaya vascular problemkiina haddii long time uu jiro complication baa imanaya easily in xubnaha lagu jaray noqonaysay oo la gooyo qofkii xubintiisii la gooyo in long distance la sii sida ayaa dhacaysay in muxuu ahaye uu haddana waiting galo oo maadaama dhaawacii la waiting la galo ayaa dhacaysay oo qofkii muddadii uu sugo intiiba waad safe garayseen qofkii haddana meeshii dee uu joogay uu ku dhaawacmay lagu qalayo laga yaabo in wali dad joogaan oo wali dadka garanayo baad safe garayseen soo waxaan idin leeyahay jazaakum allah khayr arintaas يعني مهد علنتيدا إلهي كسكو إذنك إسكاله تيم كدكتورك هاير قريبة إسكاله تيم كل لبعض صور عنا وتيم كدكتورك وين كشقينا يا عصبتال كده وده بردقة يا وحنا ودنا وأي هدار يجوا تشوقي لهين ومدافع ذا يكبق لهاين وعصبتال كلجا عرر لها تمان تكمو سعودين وحني قفل بوحي ور مالين باندبنا يا أنا جو وحكمنا يا عندنتو من أجاسمها عصبتال كأحمد بان أرنتا عادي وجو مارتي وجو مهد علينا يا وأيو ماشي مرة دي مدحدو تشوقتو استافنا ويديرنا يعني سو واحد دين لا هawshii halka ka wada muxuu ahaayay isdiiri galiya fiidiyogan waxa idin ku soo direynaa waxa weeyaan qofka aan dadka u shukriyo ilaahay ma shukriyo inaan idin tusno wixii aad qabateen halkana waad ka daawan doontaan dhaawacyadii biraha la galiyay horumarkii waad ka daawan doontaan iyaga codadkoodii baad ka arki doontaan sida darteed waxa weeyaan waad mudan tihiin inaan idin soo celino feedback iyo transparent oo ah dhakhtarkii waxa uu qabtay waxaan taa uga daleenahay laba arimood idinka inaan idin mahad celino ilaahay ka sakow oon idin shaqadiina taankiyo idin idhaahno oo idinkuna qalbigiina wax wanaagsan ka dareentaan inaad dadkiini badbaadiseen talabaadan ka leenay waxa weeye dadka kale ee maanta dhakhaatiirta aynu u baahanahay speciality-ga kala duwan sida neurologist muxuu ahaayay surgeon oo kale sida vascular doctor oo kale in team kalena dhiiradaan oo la isqayb-qaybiyo oo iyaguna ay haayar gareeyaan waxa kale oo aan doonaynaa waxa weeyaan waxaynu u baahanahay wax ka badan waxan we are far from here haldeerto waxa weeyaan wali wax badan baa inoo dhiman oo tiimam kale aan jecelahay codkaygu inuu gaadho waxaynu u baahanahay critical care unit baynu u baahanahay intensive care unit baynu u baahanahay inaynu ventilator helo ventilator set up garayno cisbitaalada cisbitaalka weyn iyo manhal labada cisbitaal dadku u badan yihiin ba aynu ka set up garayno muxuu ahaayay sidii loo heli lahaa intensive care unitka ama ICU ga hadba sida loo yaqaano oo qofka marka la qalo haduu complication yimaado loo baahan yahay inuu helo ventilator inuu helo oo oxygenkii iyo ventilatorkii iyo qalabkii inaynu helo insha Allah taala waynu gaari doonaa muddo yar oo muxuu ahaayay 2 bilood ah oo aynaan maanta maamul ahayn oo aynaan maanta dawlad ahayn ayaynu wax badan gaadhnay oo ah yacnigii guulo badan dhalinay waxaynu doonaynaa u baahanahay waxa weeyaan raba qof kasta inaan ku baraarujiyo inaynu helo ICU intensive care unit-ka aynu helo oo ventilator aynu helno oo muxuu ahaayay labada cisbitaal oo dadku badan yihiin aynu ku sid abgarayno labada dhakhtar ugu muhiimsan hada loo baahan yahayna waa neuro iyo spine doctor iyo vascular dhakhtar spine-ka ah ama maskaxda ah iyo dhakhtarka muxuu ahaay neerfayaasha oo kale markay go'aan la doonayo in maaragtay aynu sameeyno insha Allah taala sida isu xilqaabeen teamka dhakhtarka hayar gareeyay orthopedic-ka ah ee maanta laascanood ka hawlgalaya intaas oo qof ku qalay ee succeed-ka ah general surgery-na waa joogaan iyagana oo cisbitaalada kalena way joogaan halkana way joogaan
marka waxaynu u baahannahay inaynu step by step u increase garayno wixii waayo dagaalkiina wuu socdaa dhaawiciina waa socdaa waxaynu markaa odhan karno ma garanaysaa weli meel baynu gaadhnay oo weyn wax weynu achieve garaynayna tana kamida maanta idinka mahad celinayo laakiin weli waxaynu u baahannahay insha Allah taala inaad taa isku gaadhsiisaan isku baraarujisaan inaynu labada dhakhtarna helno labada ICU na helno muxuu ahaayay ninka dhaawaca ah ee dhakhtarada lagu daweynayo wuxuu u yahay sahan ninka jiida ku jira ee shicibka ah ee doonaya cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo wadankiisa inuu difaaco hadduu ninka soo dhaawacmay silco ninka jiida ku jira kanoo arkaya oo maanta uu oranaya kiiba waxba looma qabanin marka waxaynu u baahannahay dhaawaca awood weyn inaad iska saarno xil weyn iska saarno haday noqon lahayd maintenance-go daily maintenance-gooda cuntadooda muxuu ahaayay hygiene-kooda sidii de qofku u noolaan lahaa qofkani maanta xubnihiisii buu maartay waayay soo qaar baa xubnahooda waayo la jaraya haday doonaan qaar baa psychological okay ahayn waxaynu u baahannahay inaynu ku tashanno maaha inaynu ku tashanno kaliya ninka jiida ku jira qori hala siiyo waxa maaha waxa weeyaan ninka markuu soo dhaawacmo waxaynu u baahanay wixii ilaahay ka jecelaado ilaahay qaato ilaah baa qaatay laakiin ninku markuu soo dhaawacmo xil weyn in la iska wada saaro magaalada waa ghost town waa laga qaxay cid joogta ma laha reerahoodii dadka familiyadii ma joogaan bahda caafimaadka iyo dadka u maqan ayaa u ah maxay dadkoodii waxay u dagaalameen reerahoodii maaha waa cirdiga gobolada SSC ayay u dagaalameen soo waxaan u baahanahay mid kasta baahidiisa in la daboolo intay gaarsiisan tahay dhaqaatiirtooda dawadooda qalabkooda iyo daily life-kooda inta inaynu isku dayno garabka isku wada qabsano insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaan hadalkii idin dhameeyay jazaakum Allah khayr